Banaanbaxan oo ay ka qayb galeen dadweynaha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa soo qaban qaabiyay hay'adda wada hadalka bulshada ee CCD iyadoona dadweynaha ay isugu soo baxeen xarunta maamulka gobolka Banaadir oo ku taala degmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir. Dadweynaha oo socod dheer kadib isugu soo ururay fagaare ku yaala xarunta maamulka gobolka ayaa waxaa khudbado kala duwan halkaas uga jeediyay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya iyo gudoomiyaha ururka haweenka ee maamulka gobolka Banaadir. Gudoomiyaha haweenka ee gobolka Banaadir Jawaahir Barqab oo ugu horeyn khudbad u jeedisay dadweynihii isugu soo baxay halkaasi ayaa sheegtay in ay ka dalbanayaan madaxda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya sida madaxweynaha, gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha in ay soo saaraan sharciga la dagaalanka argagixisada si loogu qaado dambiilayaasha dilalka ka fuliya Muqdisho. yaysan ugu daahin runtii waxaan ku dheg aan dhihi doono 2014 ilaa 2015 inaan annaga haween ahaan ereygaas uu aad noo taabtay sababta oo ah waxay ahayd mudana gudoomiyaal marka ugu horeyso isu soo baxaan waxaan ugu dhiirigeliyay kaga mahadcelinaynaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Tuuriyare oo halkaasi hadal kooban ka jeediyay ayaa waxa uu ka hadlay xukunnada lagu fuliyo dambiilayaasha wuxuuna ku booriyay dadweynaha gobolka Banaadir in ay la shaqeeyaan gacan ka siiyaan ciidamada amniga sidii loo sugi lahaa amniga gobolka. ay agteena ku dhuuman maayaan laakiin agtiina ku dhuuman baan leeyahay shacabka gaar ahaan haweenka gabdhaha Soomaaliyeed waa caqli badan yihiin ragga waa ka dhiifoo yihiin agtooda iyo gurihooda laguma dhuuma karo aaday u yaqaanaan gabadha dariska gabadha guriga joogta waa taqaan gabadha kale dariskeeda dadka u yimid waa taqaanaa waa gala kartaa. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Mungaab oo ugu dambeyn halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu mahad celiyay shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir sida ay u muujiyeen shucuurtooda ku aadan amniga gobolka waxa uu sheegay in gudoomiye kasta oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir lagula xisaabtamayo wixii ka dhacay degmadiisa. waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin sida aad u muujiseen dareenkiina sidoo kale waxaan u mahad celinayaa hay'adda CCD oo barnaamijkan abaabulkiisa isku dabaridkiisa kaalinta koobaad ka geysatay maamulka uu gacan siiyay. dhinaca kale dadweynihii ka kala socday 17 degmo ee gobolka Banaadir ayaa fagaarihii ay maanta isugu yimaadeen waxay shucuurtooda ku muujiyeen sida ay uga xun yihiin qaraxyada dilalka iyo weerarada inta badan ku soo noqnoqda Muqdisho iyagoona sitay boorar ay ku qornaayeen halkudhagyo ay ku muujinayaan nabadda isla markaana ay uga soo horjeedaan kooxaha nabad darrada ka wada magaalada Muqdisho. Mohamed Bille Somsat TV Muqdisho.